ardayda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda bariga Afrika ayaa xaflad sugootina u qabtay Dr. Warfaa oo ka mid ah macallimiinta kulliyadda caafimaadka. xafladan aadka u qiimaha badan ayaa ay ka soo qayb galeen macallimiin, dhakhaatiir, aqoon-yahano iyo qaar ka mid ah maamulka jaamacadda bariga Afrika. waxaana ugu horeyn halkan ka hadlay Cawil. seen ogsoonahay waxay daaran tahay macallinkeeni ama doctorkeeni Dr. Cabdiraxmaan Axmed Warfaa oo safar waxbarasho inooga baxaya inay ku sugootino. Dr. Cabdiraxmaan Axmed Warfaa waan wada garanaynaa wuxuu ahaa waa doctor kamid ah macallimiinta dhigta jaamacadda bariga Afrika ahna dhakhaatiirta Farsata Kalkaal Hospital waan wada garan karaynaa. kullay anaga arday ahaan si gaar ah noogu duwan yahay macallimiinta kale sababta waa macallinkii koowaad ee lagu bilaabo jaamacadda qaybta caafimaadka muddada 3 sano waa naga nala joogay macallinku hadba sida macallimiinta kale qaar sanad nala joogan qaar suguudda Dr. Cabdiraxmaan runtii hal eray ama laba eray halkan laga yiraahdaa ma kafayso inaan doctorka warbixintiisa ku soo koobno ama aan kan idhaahno muhiimadda iyo ahmiyadda uu agteeda ka leeyahay. annaga waxaan nahay galaaska semester 7 muhiimadda iyo warbixinta Cawil baa si fiican uga sheekeeyay. markaas Dr. Cabdiraxmaan aad buu u mahadsan yahay muddadii dheereed oo nagu soo garab taagnaa waxbarashada. waa doctor xagga caafimaad iyo xagga waxbarashada si fiican inooga qabtiray baahiyo badan oo dhinaceena ka jiray haddana duruuf waxbarasho inooga tagay. sidaa darteed waxaan leenahay aad baad ugu mahadsantahay muddadii badneed aad nagu soo garab taagnayd aqoonta waxyaalihii barnaamij kaaga faa'iidnay jazakallahu khayran jazaa wa ahsana allahu ilayk. aqoontaada waxbarasho ee aad u baxaysid ilaahay kugu soo guuleeyo ayaa leenahay. billahi tawfiiq. haddana waxaan kusoo dhaweynayaa Leyla oo tix yar oo gabayo ku sugantiisa doctorka. asal gabayastaan lagu hirtiyo eraya maamusle asal gabayastaan lagu hirtiyo eraya maamusle teriyo nimo ana la yogaan jiray waana abiya taariikh tilmaano amaradahe ana aragtidaydiyo tixbaan ku eebi doonaye balaantiriyo maanto kalay midna leedahay iga maqal macallinowin baan ku akhriyayaaye ana ilaawi sugaantuwa oday ka sheekeeye waxaa tahay aqoon-yahan cilmiga aad u laasimaye waxaa tahay khiyaar nagu tabco aad wax noo baraye adiga ilaa kugu gabaday aragti wayeele ardaydana waxaad u la mid tahay aabihii dhalaye oo waan ku abaalgudahanaa eebba iidamkiye inkaloo suguntina iyo ducaan ku afjaarayaaye baloo kuma sibtiya xanuun taabto ogadaye adduunkana barwaaqiyo ka mudo aya nololeede adduunkana barwaaqiyo ka mudo aya nololeede akhirana albaabada jannada eebba kugu beeye idinkuna amiinta raadiya rabbi baan ku irkanaynaye. dadka kale ee kasoo qaybgalayaasha ee iskugu jira ardayda iyo maamuliinta hosbitaalada iyo dhakhaatiirtaba aad iyo aad baan idin salaamayaa. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka bacdi kolley waxaan ilaahay uga baryaynaa walaalkeen Dr. Cabdiraxmaan Warfaa inuu ilaahay u fududeeyo safarka iyo waxbarashada. kolley gudoomiye hore iga horeeyo waxaan odhanaynaa uun qoraxdu dalaalimo dhulku taako dadkana ilaahay aabiyo hooyaa kaaga dhigo ummadana bogooga ilaahay burcada kuu mariyo. Dr. Warfaa laba dhinacba markii la eego laba kaalimood oo adag buu kaga jiray. dhinac waa marka laga eego adeega caafimaadka Cusbitaalka Kalkaal sidii horeba looga dhawaajiyay kaalin adag buu kaga jiray oo wuxuu ahaa
dhakhtar aad adeega hooyada iyo magaranaysaa aad loogu baahan yahay in badan ka soo shaqaynayay dhinaca kalena waa dhinaca jaamacadda oo macalinka ahaa labada kaalmoodba waa la tegi doonaa doctorka sababaha la sheegayna waa sabab waxbarasho ayuu hadda inooga tegi doonaa isaga waxaan u rajaynayaa insha Allah in ilaahay uu waafajiyo safarkiisa farxad weyn bay ii tahay marna naxdin bay ii tahay farxad waxay igu tahay xafladan inaan ka mid noqdo dadkii sugootinaya doctor Warfaa oo muddo 3 sano ah la soo shaqaynayay cusbitaalka Kalkaal ana intaana aan ka wada shaqaynaynay doctor Warfaa waa wada ogtihiin calaamadihiisa iyo dabeecadihiisa ma soo koobi karno dadkii iga hadlay baa sheegay waa nin dabeecad leh karti u leh shaqada uu qabanayay bulshadana soo tusay idinka marxaati ka ah mid waan ku faraxsanahay oo baxida uu baxaya aqoon waxbarasho inuu soo kororsado farxad weyn bay ii tahay midna waa muruga ii tahay oo macnaha inaan saaxiib deegaanka meel fiican ugu fadhiyay inuu naga baxo dacidun baa ka soo bixi kara iska adagtay horta baadigu horeysay buu hoodo imiday jihad way iga khalkhashay buu hoodo waxyaabaha ka duwanta waxa kamid ah inuu meelo badan baan tagay jihada kaalumaysa macnaha bariga galbeed ma kala garan karaysi hadda markii dambe waa iska aamino markii la xagga loo tukanaya waan aamino hada meelo fog waan tago saas ma aanay marka waxyaabo badan de waqti adag iyo waqti fiican ba waynu soo aragnay macnaha 3 sano joogay waqtiyadii abaarihi baan soo marnay waqtiyadii shuban biyoodkii iyo macnaha dhibaato badan lagu ka jirta soo marnay iyo hadda waqti fiican lagu jiro inta waynu soo aragnay dad badan oo de macnaha buu hada dadka degana si fiican bay soo dhaweeyeen 3 sano joogayna waxaan ka sheegan karaa oo wanaag hayn ma jirto wayna nala shaqeeyeen muhiimaduna waxa weeyaan dadka buu hada degan waa dad aad u fiican laakiin dadka yimaada aad bay ugu fiican yihiin oo soo dhaweyn leh waxaan leenahay aad baan uga mahad celinaynaa sida fiican ee noo soo shaqeeyeen inta aad ka tago maana waad baan ugu mahad celinaynaa ardaydii ka soo diyaarisay xaflad yar iska kooban ee waqtiga koobana waxa weeyaan ardaydani waxay lagu leeyihiin taariikh gaar ah aniga iyo Cabdicasiisba waxay haayeen ardaydii ku bilaabay iyagiyoona wax dhaqaatiir iyo cid wax u dhigtayna jirin oo aniga Cabdicasiis oo kaliya joogno ay yiraahdeen waan bilaabayna ilaahay tala saarteen maanta waa aniga arkaya waxa weeyaan ardayda ka soo baxday awil waadarkaysiin waa ninka dhan hadda bulshada ku dhaqaaqday egasreega magaalada u saara caafimaadkiina ka faa'iideystay sayna waadarkaysiin oo waa dadka ay Kalkaal hospital ku dhaqaaqo wax kastina sameyn karaysa midda labaad aqoontii xataa nigala tagayada ay gala hadhay aad ka dib iyada weydiinaysiin hadii waxaanu gala tagay ma jirto iyada ka sii masuula magaalooyin kale hooyadii u baahnayd in iyadii imaha la kala badbaasho laakiin maanta alxamdulillah dhaqaatiir badan baa joogta magaalada oo intaas qaban karaysa waa waqtigii waxaan isleeyahay ugu haboonaa ee macnaha magaalada adiguna aad ka dhaqaaqi lahayd ee wax sii kori lahayd maadaama ay magaaladii soo kacday bulshadii ay wax badan baratay kulba ay macnaheedu waxa weeyaan inta waan isku soo xiisi doonaa intaynu kala maqanahay waan isku soo noqon doonaa insha Allah waxaan rajaynaynaa Ilaahay inay naga dhigo kuwii jannada ku kulmo hadii Ibrahim Abdulqaadir Jabaan Som News TV buu hoodle